بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa Sahan Academy hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wali waxaan ku guda jirnaa course-ka aynu ugu magac darnay Food Science and Nutrition oo markaasi ah course aynu ku baranayno cilmiga cuntada iyo sidoo kale cilmiga nafaqada waxaan maraynaa lesson 53 oo markaasi ah cashirka ee 53aad cashirkan waxaan kaga hadli doonaa mid ka mid ah vitaminada loo yaqaano vitamin B complex waxaynu cashirkan kaga hadli doonaa vitamin B3 ayaan kaga hadli doonaa waxaan filaa 52 aynu horey u soo daawanay si fiican loo wada fahmay hadii ay jiraan su'aalo ku saabsan 52kaas cashirna waad ina soo weydiin kartaa WhatsApp ayaad nagala soo hadli kartaa ama email ayaad inoo soo diri kartaa adigoo emailkaaga cinwaan uga dhigay qaybta aad doonaysid inaad su'aal naga weydiiso sidoo kale waxaan filaa talooyinkii aan muuqaaladii hore ka jeediyay in la qaatay ama hadda kadib la qaadan doono taa oo ku saabsaneyd in cilmiga aad baranaysid waxyaabo badan oo ku saabsan in la raadiyo aynu gudaha u galnay marka Food Science and Nutrition lesson 53 ayaan maraynaa waa cashirka 53aad cashirkana waxaan kaga hadli doonaa mid ka mid ah vitaminada oo marka loo yaqaan B complex gaar ahaan B3 vitamin B3 sidoo kale waxa loo yaqaan niacin ayaa loo yaqaan marka qaadashada hadda ku filan oo niacin ah ama vitamin B3 ah oo qaato jirka bini'aadanka si guud ahaan caafimaadka inuu wanaagsanaado ay markaasi muhiim u tahay waa qaadashada niacin iyo sidoo kale vitamin B3 daaweynta iyo markaasi marka laga hadlayo treatmentiga ama daaweynta marka laga hadlayo hadii aad u badan oo niacin ah wuxuu sare u qaadi karaa heerka cholesterolka iyo sidoo kale in uu markaasi hoos u dhigo khataraha oo markaasi la xiriira cudurrada ku dhaca wadnaha inuu hoos u dhigo ayuu markaasi isaga uu ka qayb qaata hadii badan oo niacin ama vitamin B3 labadu waa isku mid wuxuu wanaajin karaa cholesterolka heerka cholesterolka sokorta dhiigga laga helo iyo sidoo kale in uu hoos u dhigo cudurrada markaasi la xiriira kaliya la xiriira marka inta ayaa loo baahan yahay inaad qaadato adiga oo niacin ah ama vitamin B3 ah qof waliba wuxuu u baahan yahay hadii oo kala duwan oo certain amount uu u baahan yahay oo niacin ah taasoo laga helay cuntooyinka si markaasi shaqooyin oo normal ah loo qabto xadigan oo markaasi qofka uu qaadanayo waxa loo yaqaan dietary reference intake ayaa loo yaqaan DRI na waa laga soo gaabiya tusaale taas oo qaadano caruurta waxa laga rabaa inay qaataan inta u dhaxayso 2 ilaa 16 miligram maalintiiba waxayna ku xiran tahay da'dooda ay ku xiran tahay ragga oo kale waxa laga rabaa 16 miligram ayay maalintii laga rabaa inay qaataan womenka oo kale oo caadiga ah oo non pregnantiga iyo non markaasi aan ahayn kuwa loo yaqaan breastfeeding kuwa sameynaya aan ahayn ama lactation ku jira naasnuujinta ku jira aan ahayn waxa laga rabaa maalintii inay qaataan 14 miligram kuwa pregnantiga oo kale marka aynu ka hadlayno ayaga waxa laga rabaa maalintii 18 miligram halka markaasi kuwa breastfeeding sameynaya laga rabo 17 miligram hadii badan in la qaato oo dadka da'da ay qaataan waxa waaye waa 35 miligram maalintiiba dadka markaasi adultiska ah marka dadka intooda badan waa inay qaataan ama waxay qaadan karaan yani hadii oo niacin ah ay u baahan yihiin ayagoo markaasi ka helayo cuntooyinka ayaga markaasi ay cunaan marka niacinka natural ahaan inta laga helaa si dabiici ahaan inta laga helaa niacinka isaga wuxuu u dhacaa si natural ahaan ayaa waxa lagu helaa cuntooyinka laga helaa waxana kamid ah dhirta cagaaran waa laga helaa hilibka waa laga helaa digaaga kalluunka ukumaha inkasto markaasi hadiga laga helo uusan ahayn yani mid markaasi mid uu yahay mid yani isbedbedela uu yahay oo hadii ku filan uusan ahayn waxyaabo badan oo la soo saaro oo products ah ayaa markaasi laga heli karaa markaas wax loo yaqaan niacinta marka lagu guda jiro sameyntiisa inta inuu ku soo gabagabeynayna cashirkana inta inuu ku kulmi doono cashirka xiga waxaan idinkaga tagaynaa sida nabadiina. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.